xalay abaare 11kii fiidnimo waxaa magaalada Jigjiga ka kacay dab xooggan oo galaaftay gebi ahaanba suuqii ganacsi ee magaalada Jigjiga ugu weynaa. Khasaaraha uu dabkani sababay ay dawladdu ku sheegtay 932 dukaan oo ku yaalay suuqa inay gebi ahaanba ku burbureen. Suuqan oo ahaa midka ugu weyn ee shacabka magaalada Jigjiga qaybihiisa kala duwan ay ku tiirsanayeen ayuuna waxba ka badbaadin. goobta musiibadu ka dhacday ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka deegaanka Soomaalida. Bismillahir Rahim kullay meeshii tan ku kacaan taaganahay tawaankii Jigjiga musiibo aad u weyn bay ahayd laakiin falillahi alhamd tabkii hadda wala xakameeyay uu sii damaya inii yaray ugu dambeysay ayaa hadda la wadaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa saasoo kale cid walba ka qayb qaadatay hay'adii amniga gurbadkii degdega ahaa oo meel banaga soo gaadhnaa baan ugu mahadnaqaynaa khaasatan waalaha naga taqaan Hargeysa naga soo gaadho ugu horeeyo maayarka Hargeysa maayar Mooge aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa saasoo kale cid walba ka qayb qaadatay oo hawsha ka korbaysan dal iyo dibadba oo Soomaali ama dad qof walba ma taana hawshan dhibayso oo maanta dareemaya culayska Jigjiga ka jira iyagana waxaan leenahay ma taqaan shacabka nagaas culaysku gaadhay kullay hiil iyo hooba way naga baahan yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah dadka maanta caaw ku waxyooloobay ee murugaysan inta tiraanyada ma taqaan la dareemaysaba iyadana waxaan leenahay ma taqaan aad iyo aad wad maadsantihiin xaqiidii dab culus buu ahaa abaar wuxuu kacay 11kii barkii hadda muddo 5 saac ma taqaan socday waxa weeyaan kulli xukuumadii dhan walba ma taqaan waa laga yimiday shacabkii ganacsatadii nin walba wuxuu hayay ayuu ku soo saaray booyadii biyaha cagafiyadii dabdamiskii dhammaan shacabkii dhaceeda ka istaageen dabka wala xakameeyay magaalada ugu faafin intuu ku fadhiyay tawaanku uu dabkani saameeyay haddana ilaahay maadii ma taana waxa way waan xakameynay wakaasoo xaalkii baan wadnaa. waxaa gurmadka iyaguna qayb ka ahaa gurmad ka yimid Somaliland oo hogaaminayo maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge. xogaaga ciidanka iyo gaadiidka aanu keenay inay gacan ka geystaan baqtiinta dabka magaalada Jigjiga iyo dadkeeda iyo ciidankeeda iyo dawladda Itoobiya waxay ahaayeen kuwii noo soo gurmaday markii suuqa waaheen uu gubtay annagana waynala noqon weyday markii maanta Jigjiga dhibaatadu ka dhacday caawad dhibaatadu ka dhacday inaannu maqnaanno oo aannu ku cudur daaranno inaanna halkan idinla joogin ciidanka hadda waa ciidan fiican oo tababaran oo cukan waxaan rajaynayaa qaybo ka mida dabku meeluhu ka olci karo inay xakameeyaan u soo jeedaan waa ciidamo xasuusan wixii abaal loo galay waa ciidamo og walaaladood maalintii ay u yimaadeen Jigjiga waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee noo soo gurmatay ee nala dhimatay ee naga tagi weyday annaguna aniga oo dadkaygiisa ku matalayna qarankaygiisa ku matalayna ayaanu halkan ku joognaa waxa hubaala Hargeysa madaxdeedii dadkeedii inay iyaguna bari soo wada bixi doonaan insha Allah taala dad walaalaha baynu nahay dad isku nafa baynu nahay dhibta Jigjiga ka dhacday waa dhib Hargeysa ka dhacday dhibta idinkeedii soo gaadhay oo mid anagana soo gaadhay halkan reer Hargeysa ama reer Soomaaliya waxaan uga sheegayaa dhibaato weyn baa dhacday waxaan rajaynayaa gobonimadii laynagu yaqaanay inaa fadhiga ka kacdaan oo walaalihiin wax soo tartaan oo sidii Soomaaliya idinku kacday ee wax laydiin taray ee suuqii laydinla dhisay in idinkuna markiina aad kacdaan oo fadhiga ka kacdaan waynu wada hadlaynaa kulamaynu qabanaynaa ilaahay idinkiina waxaynu noqon doonaa dadka ugu horeeya ee gacan ka geysta in laga soo kabto oo dib loo dhiso suuqan dawladda iyo shacabkaba waxaan uga mahadnaqayaa anoo ku celcelinayaa in horta waxaan ka tiiraansanay maanta dhibtayda haysata waxaan se ognahay haddaanu reer Hargeysanahay maalin adag oo aanu taageeradiina iyo hiilkiinaba u baahnayd inaan barbar istaagteen waxaa mucjiso ah bari waxaa la dhagax dhigay moolkii ugu weynaa ee suuqii baqtiiseen oo dib loo dhisayay isla markii xafladii qorshaheedii aan ka soo baxay oo kulan kala galay ayuu dabkana halkan ka kacay kaashalay baqtiiseen baa dib loo dhisayay kii maalintaa nabad qabay baa gubtay waxay taasi ku tusisaa dadka Soomaaliyeed ama ummadda geeska Afrika ku nool oo dhami inay iska war hayso iskaashato oo ay isu gurmato marka ay tan oo kala dhacdo
ilaahay waxaan ka baryay dabka inaan laynaga baktiyo ciidamada debdemiska Soomaaliya waxay waa arag u yihiin inaan la moodin dabka inuu baktiyay waan arkayaa meelo badan buu ka holcayaa waa in loo soo jeedaa waa in gaar laga hayaa 7 cisho oo joogto ah ayaa laga yaabaa maalin walba inuu meel ka soo qiiqo oo haddii aan ciidan gaar ka hayn uu markaa ina gaarsiiyo dhibaato ka weyntan waxaan rajaynayaa ciidamadu inay kuwa iyaga imika yimi qaarna sin doonaan markay kuwaas nastaan haddana soo geli doonaan maalmaha tegayna markaa aan loo kala tegin wasiiradana soo dhaweeyey ee halkan taagan walaalaha iyaga xadka nagu sugayey aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa halkan waxaan idinku haynaa wax weyn waxaanu ognahay waxaan nahay qaran ilaa weyn maalintii ay darayd waxaan xusuustaa habeenka Hargeysa ciidamada oo daalay oo aan adag tahay in la helo cid nasisa ayay labadii iyo jarjar ciidamada debdemiska ee Jigjiga ay soo galeen iyaga la'aantoodna dabkaasi waxa hubaala inuu fidi lahaa maalinteedii weeye annaguna hadda ayaanu soo galay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay xoogaa gacan ay geystaan oo wuxuun taraan insha Allah ta'ala